وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa faa'iidada ay leedahay farida iyo ummadda Soomaaliyeed u leedahay iyo carruurta. Please hadaad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo dheh, like, share, kow axad nala qabtina commentiga inuu wadaag insha Allah. Barida faa'iido badan ayay leedahay, 9 faa'iido ayay leedahay. Marka barida kow faa'iido ay leedahay ilmaha bahalka ayay ka dilaysaa, gooryaanka, dadka ilmaha cunto xumada, dad ilmaha caloosha xanuunta oo calool majiirka oo kale, ilmaha bahalka ku jira aad ugu fiican tahay. Marka sidee loo siiyaa? inta oo mar la siinayo ayaan la wadaagayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. kow insha Allah waxaa suuganaysaa horta sida u karinaysid ayaan la wadaagayaa. kow waa dhaqaysaa, waa jarjaraysaa, hadda waa taasaa, waa jarjaraysaa, dabkaa saaraysaa, waxa dhan biyo kuma daraysid, ayaas oo xumbinayso oo sidaas quruxda badan ay kusoo baxaysaa. aadan u karinaysaa, biyana ha u dhaweynin. marka ilmaha subaxdii alisay markay soo kacaan intaynan waxbarashada aadin oo afkooda waxaynan saarin, waxaa suuganaysaa qaandada haafka si haaf wax yar aa canjarada ugu daraysaa ama caano iyo shaaxa ugu daray. waxaa siinaysaa hal waqti oo subaxda intuusan afkiisa wax saarin ayaa siinaysaa hadduu Ilaahay yiraahdo. insha Allah soo tijaabiya, soona fiiriya. midda labaad faa'iidada ay leedahay hadda gabdhaha oo infection tahayo, dhabarka aad u xanuunayo kale aad ugu fiican tahay haddaad daa'insatid. insha Allah faa'iido badan waa ka heli doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaa kaloo ka mid ah dadka wejiga haarta ku leh oo kale, madmadowga kale ku leh, aaday faa'iido ugu leedahay. waana haddaad markaad karisid oo kale waxaa suuganaysaa, cusbo kuma daraysid, weel yaraan ku shubanaysaa, waana marsanaysaa. wiig gudaheeda insha Allah faa'iidadeeda ka helaysaa hadduu Ilaahay yiraahdo. faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah dadka jaban oo kale aaday ugu fiican tahay. waxaa suuganaysaa kale mishaarida oo kale, dadka jaban waxaa loogu talagalay in loo shiido mishaarida ka suubsan muxuu ahaaye masagada. waxaa ugu daraysaa wax yar oo qaando ah oo mishaarida u walaaqaysaa. faa'iido badanay u leedahay, wayna kabitaankan aad ugu qayb qaadanaysaa. waxaa kaloo ka mid ah dadka umulaha oo 40-ka markay kasoo baxaan oo kale aad u qurxinaa. inta 40 ku jirtid ilaa cunuga nuujinayso kale faa'iido badanay u leedahay. marka Soomaaliya ka faa'iideysta hadduu Ilaahay yiraahdo. dad badan cudurro badan ay daaweysaa, infectionkooda ay daaweysaa, caloosha carbohydrate-ka wax kasta insha Allah way naga daaweynaysaa. marka Soomaaliya ka faa'iideysto kasaasay noogu soo baxda quruxda badan. way kala yihiin, waxaana fiican wanka jabsadoo kale aad u fiican tahay baradiisa oo cusub oo hadda la qalay. kasta insha Allah ka faa'iideysta Soomaaliyeed. please channelkaas ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa walaal subscribe inaa ii saartid, channelka kusoo ku dhawaatid, wixii fikri ah oo nala wadaagtid commentiga noogu soo qor hadduu Ilaahay yiraahdo, waana kaaga jawaabayaa. marka please fiirso karsanaysa. haddaan kuu bilaabaya saa u karinaysid. waa soo gadaysaa, waa dhaqaysaa, waa jarjaree. marka aad jarjartid dabkaa la saaraysaa. marka dabka la saartid daboolka aa saaraysaa. cabbaan bay kusoo kulmataa, aragtay xumbeynada ka qaaday. maantana waxyar kadib usoo laabaysaa, u fiiri walaaq
وانا كذا مركز سوق ذي هذا بردان بريساس عمله هو إنه سوق ذي قروح دونه ما شاء الله هاد هاف وايتم ما دامو شيء برد من هان هاف سوق ذي عرفت سوق ذي كيف يستقبل شو Soomaaliyeed oo kaasa saas u qurux badan tahay laakiin kuwa waxaa jiraan oon jabsada ugu fiican Soomaaliyeed ka faa'iideysta daawasho wacan insha Allah. Assalaamu calaykum.